بسم الله الرحمن الرحيم تيها صدنك بيشا أغسطس سنة كاللبكن لباتن يشان أو كوبيغان تضباد بيشا ربيع الأول سنة كن أفر بقولا فرتنية تضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي ولا شدا ورركا قضبada saaka barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamida dagaal faraha looga gubtay isla markaasna qasaaro culus loogu geystay ciidanka Israa'iil oo xalay ila iyo saakay ka holcaya bartamaha Gaza xaafada Al-Zaytun ayaa xalay lagu helay ciidamada Israa'iil in ka badan 10 askari ayaa dhimasho dhaawac loogu geystay laba hawlgal oo dabina oo dhacay xalay oo idil waxa la baadi goobayay askarta Israa'iil militariga Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in la adeegsado xeerka Hannibal kaasi oo dhigaya askarta intii maxaabisaha loo qabsan lahaa in la laayo Abu Ubayda oo soo saaray war culus isla markaasna sheegay in ay diyaar u yihiin dagaalka Israa'iil imika ay ka wado bartamaha Mareykanka Gaza oo ay ku doonayso inay ku qabsato xaafada Gaza waxaan diyahaynaa hadallo kulkulul oo u jeediyay Abu Ubayda diyaaradaha qomaatiga Israa'iil oo xalay oo idil daabulayay meydka iyo dhaawaca askarta duulaanka dhinaca kale Israa'iil ayaa xoojisay duqeynta iyo weerarada ka dhanka ah Mareykanka Gaza baarlamaanka Turkiga oo ansixiyay tilaabooyin culus oo ka dhan ah Israa'iil waxa kamid ah xubinnimada qaramada midoobay in laga xayoobiyo Malaysia ayaa sidoo kale taageertay arrintaasi dowladda Argentina ayaa laga dalbaday inay xabsiga dhigto Netanyahu oo la filayo dhawaan inuu booqdo wadankaasi in ka badan 140 qof oo tahriibayaal ah ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen doon ku degtay xeebaha wadanka Mauritania waxay ku sii jeedeen Spain ciidanka Mareykanka oo maanta bilaabaya inay ka baxaan magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Ciraaq maamulka Falastiiniyiinta oo si adag uga farceliyay tilaabo madaxweynahooda iyo xubno kale oo kamid ah maamulkooda loogu diiday dalka galka Mareykanka xilli ay ka qaybgali lahaayeen shirka golaha loo leeyahay ee qaramada midoobay dhamaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee soo kordhay inta hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada marka la daawadayaal taaka waxaynu ku bilaabaynaa ilaa iyo 140 qof oo tahriibayaal Afrikaan ah ayaa la aaminsan yahay in ay ku dhinteen xeebaha wadanka Mauritania kadib markii ay la degtay dooni dadkaasi ay saarnaayeen waa safar kale oo halistiisa wata sarkaal ka tirsan ilaalada xeebaha Mauritania ayaa sheegay in mid ka mid ah kooxaha kormeerka uu badbaadiyay 17 qof isagoo intaas ku daray in ilaa hadda la helay meydadka ku dhawaad 100 qof waxaa la aaminsan yahay dad intaas ka badan in ay baddu ay ku qarraqmeen shilkan ayaa dhacay fiidnimadii Arbacada sida uu sheegay sarkaalka kadib markii muhaajiriinta doonta saarnayd ay arkeen iftiinka magaalo ku taal xeebaha Mauritania oo qiyaastii 80 kiiloomitir dhanka waqooyiga bari ka xigta magaalada Nouakchott ee caasimadda isla markaasna dadkii hal dhinac doonta ay wada fuuleen taasi oo keentay in doonidu ay roganto ama ay qallibanto sarkaalka ayaa xusay in hadalka muhaajiriinta laga dheehday in doontu ay ka soo baxday wadanka Gambia toddobaad ka hor iyadoo 160 qof kuwaasi oo u dhashay Senegal iyo Gambia masiibooyinka noocani oo kale ayaa si joogto ah uga dhacaya socdaalka qataraha badan ee Afrika iyo Yurub halkaasi oo xoog hirarka badda iyo doonyaha macmalka ee safarka qatarta badan ay ka dhigayaan mid dad badan ay ku geeriyoodaan hay'ad aan dawli ahayn oo ka shaqeysa arrimaha muhaajiriinta ayaa sheegtay in 10457 qof oo muhaajiriin ah ay ku dhinteen badda 2024 iyagoo dadkani doonaya inay ka gudbaan xeebaha wadankaasi Spain wahagaag qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno markaan waxaynu eegaynaa war la xiriira Mareykanka oo ciidankiisa kala baxaya magaalada Baghdad ee caasimadda wadanka Ciraaq wararka ka imaanaya wadankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in iyadoo la fulinayo heshiis laba geesood ah oo horay u dhex maray Mareykanka iyo Ciraaq ayaa hadda waxa shaaca laga qaaday in ciidanka Mareykanka la filayo in ay bilaabaan
ka bixitaanka caasimadda ciraaq ee Baghdad maanta oo Sabtiyana arrintaasi ay bilaaban doonto. warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaysa in ciidamada Mareykanku ay ka bixi doonaan aagga cagaarana ee sida weyn loo ilaaliyo halkaasi oo ay ku yaalaan safaaradaha reer galbeedka iyo xarumaha rasmiga sidoo kale garoonka dayuuradaha magaalada Baghdad iyo xarunta taliska howlgalka wadajirka ayaa ciidanka Mareykanku ay ka bixi doonaan. heshiiskii 2024 ee dhex maray Ciraaq iyo Mareykanka ayaa dhigaya in ciidanka Mareykanku ay si kooban u sii joogaan gobolka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq muddo 1 sano oo dheeraad ah. dowladda Ciraaq ayaa marar badan xaqiijisay in wajiga koowaad ee ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee qaybta ka ah isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalamaya kooxda ISIS oo dhammaan doono September 2025 halka wajiga labaadna oo soo ilaan doono 2026. hadda ku dhawaad 2500 oo askari oo Amerikaan ah ayaa weli jooga Ciraaq iyagoo ku jira wax loogu yeeray la dagaalanka Daesh howlgallo tababar ah oo lagu tababarayo ciidanka Ciraaq tala bixin iyo taageero ciidanka la siinayo. waxaana la sheegayaa in ciidankan la dhimay tiradooda markii Daesh laga saaray dalka Ciraaq 2017. si kastaba ha ahaatee joogitaanka Mareykanka ee Ciraaq ayaa carag ka dhaliyay gudaha waddankaasi gaar ahaan kooxaha hubaysan iyo xisbiyada dhanka siyaasadda ee u jeera Iiraan taasi oo keentay in Baghdad ay bilowdo wadaxaajood taxanaha oo Mareykanka lala yeeshay sanad ka hor si loo afjaro howlgalka isbahaysiga ee Mareykanka. waa hagaag warar kala duwan oo Gaza ayaa inoo soo socda laakiin markan waxaynu eegaynaa dowladda waddanka Argentina oo laga dalbanayo in ay xabsiga dhigto Netanyahu haddii uu soo booqdo waddankaasi oo la filayo in dabayaaqada bisha soo socota la filayo inuu booqdo. qareeno xuquuqda aadanaha ayaa jimcihii waxay sheegeen inay dacwad ciqaabeed ka gudbiyeen maxkamadaha federaalka ee Argentina iyagoo dalbanaya in la xiro ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu haddii uu cagta soo dhigo dalkaasi xilli warbixinadu ay sheegayaan suurtagalnimada in bisha September uu booqan karo waddankaasi inkastoo si rasmi ah loo xaqiijin arrintan. dacwada ciqaabada ee loo gudbiyey maxkamadda federaalka Argentina ayaa waxay ku baaqaysaa in Netanyahu la xiro lana baaro mas'uuliyadiisa siyaasadeed iyo tan military ee Israa'iil kadib dhacdo 23 March la fuliyay oo lagu dilay 15 qof oo ay ku jiraan shaqaale gurmada oo gargaarka qaybinayay iyo sidoo kale dhibaato loo geystay warbaahinta gudaha ee Israa'iil ayaa sheegaysa in Netanyahu uu qorsheynayo inuu booqdo Argentina bisha September laakiin xukuumadda Israa'iil weli ma xaqiijin safarkaasi. wargeyska Clarín ee Argentina ayaa ku waramaya in Netanyahu uu bedelkiisa dooran doono in uu codsado kulan uu la yeesho madaxweynaha Argentina Javier Milei iyagoo ku wada kulmaya magaalada New York. shirka bisha September lagu qaban doono halkaasi ee shirka golaha loo dheeyahay ee qaramada midoobay. dacwadda ayaa lagu sheegay in la fahamsan yahay in Netanyahu uu mas'uul ciqaabeed ka yahay isagoo kaalin ku lahaa dembiga dagaal ee ula kaca ee dilka iyadoo loo marayo gaajo dambiyada ka dhanka aadanaha sida dil silcin iyo falal kale oo bini'aadantinimada ka baxsan. dacwaddan waxaa gudbiyey qareenka xuquuqda aadanaha ee Argentina Rodolfo Janson iyo Raji Sorani oo ah agaasimaha xarunta xuquuqda aadanaha ee Falastiin. waxaa horey bishii Agoosto dacwad kale laga gudbiyey oo amar xarig ah Netanyahu iyadoo la sheegayo in loo gudbiyey maxkamadda federaalka ee ururka shaqaalaha dowladda loo yaqaano ATA iyo hay'adda xuquuqda aadanaha ee loo yaqaan HIJOS. waa hagaag waxaynu soo fool leh wararkii ugu dambeeyay ee Gaza. xalay Israa'iil ciidankeeda waxaa lagu helay xaafadda Al Zaytun 10 askari ayaa la sheegayaa dhimasho dhaawac inuu soo gaaray. diyaaradaha qumaatiga u kacana xalay oo idil meydka dhaawac ay kala daabulayeen. wararkaasi iyo Turkiga oo qaaday arrimo culculus oo la xiriira Israa'iil intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayisiina. waa hagaag xalay Gaza waxaa ka dhacday lama arag iyo lama maqal. askar ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa ilaa hadda la baadi goobaya. waxaa la aaminsan yahay in la qabsaday askartaasi nolol ama geeri. militariga Israa'iil waxay ku dhawaaqeen xeerka loo yaqaan Hannibal kaasi oo dhigaya
askarta intii maxaabiis ahaan loo qaadan lahaa in la laayo warkan waa is soo taraya laakiin waxaan ku hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira howlgalladii xalay dhacay warbaahinta Israa'iil ayaa ku waramaysa in laba dhacdo oo culus ay ka dhaceen marinka Gaza iyadoo diyaaradaha qomaatiga u kaca ee ciidanka Israa'iil ay daadgureynayeen askar iyadoo dhaawacyo culus la sheegayo askarta inay soo gaareen rasaas ayaa la sheegaya xalay ciidanka Israa'iil in ay meel walba u furayeen waxaana la soo warinayaa in ugu yaraan hal askari la dilay ilaa iyo 9 askarina la dhaawacay laakiin waxa la leeyahay hadda wararka ugu dambeeya 4 askari oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa la yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen waxaana socda howlgallo baaritaan ah oo culus oo lagu doonayo askartaasi in lagu soo furto xaafadda al-Zaytuun iyo xaafadda kale al-Sabra ayaa la sheegayaa in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay si ba'an xalay oo idil ay u duqeynayeen waxaana warku taasi ku darayaa in xaalad adag ay ka jirto gudaha Israa'iil waxaana warku taasi ku darayaa in uu jiro isku day dagaalyahanada al-Qassam ay ku doonayeen inay ku qabsadaan ciidamo ka tirsan guutada raalli ahaada waa qaybta 162 iyo guutada 401 waxaana la leeyahay ilaa iyo ciidamo aad u fara badan ayaa hadda lagu daadguray halkaasi waxaana lagu soo waramayaa qaar ka mid ah askarta in ay geeriyoodeen oo dhimashada ay ka badnaan karto hal askari sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan wararku waa isa soo tarayaan waana soo daba dhacayaan dhinaca kale dagaalyahanada al-Qassam iyo Saraa'i al-Qudus ayaa waxay ka warbixiyeen howlgallo hore oo ay ka fuliyeen xaafadaha Jabaaliya iyo al-Zaytuun waxa ka mid ah taangiye la gubay hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay soo xigtay ila amni oo sheegaya in haddii Xamaas aysan hub ka dhigin in markaa marayka Gaza la qabsanayo howlgalkan oo ku fidi karo xeryaha qaxootiga ee ku yaala bartamaha marayka Gaza waxay noo soo socoto warbixin ku saabsan Abu Ubayda oo jeediyay hadal adag laakiin dhanka Israa'iil aynu eegno Yair Lapid oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay ku jirto burbur siyaasadeed isla markaasna xukuumaddu aysan jirin marka laga eego masraxa caalamiga macnaha wuxuu leeyahay Israa'iil maba ka jirtaba dawlad marka loo eego masraxyada caalamiga dhinaca kale xubin ka tirsan guddiga maaliyadda aqalka kaniisadka ama baarlamaanka Israa'iil ayaa sheegay in go'aanka Turkigu uu ku xayirayo hawadiisa isla markaasna si rasmi ah uu u joojinayo xiriirka dhaqaale ee Israa'iil uu kordhin doono qiimaha nolosha Israa'iil wararka dhanka diblomaasiyadda Spain ayaa waxay sheegtay inay ka dalban doonto midowga Yurub in la mamnuuco hubka loo dhoofinayo Israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee Spain Jose Manuel Albares ayaa farta ku fiiqay in dawladdiisu ay soo jeedin doonto qorshe Yurub ku joojinayso dagaalka Gaza isla markaasna lagu soo bandhigayo tillaabooyin degdeg ah oo lagu wajahayo macaluusha ka jirta Gaza waxa kale oo xusay in la balaarin doono liiska cunaqabataynta ka dhanka ah kuwa carqaladeynaya nabadda isla markaasna la dalban doono in la joojiyo iibinta hubka Israa'iil laga iibinayo wasiirku wuxuu carabka ku adkeeyay in halka laba dawladood uu yahay wadada kaliya ee nabad iyo xasilooni u horseedi karta gobolka bariga dhexe marka waxaan u gudbaynaa sheeko kale la yaab leh bisha soo socota magaalada New York waxa ka dhici doona shirka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay shirkan inkastoo uu dhaco bisha September ee sanad kasta sanadkan wuxuu dheer yahay 80 sano ayaa laga joogaa dhismihii qaramada midoobay waana loo dabaaldegaya madax badan oo caalamka ka tirsan ayaa booqanaysa arrinta la yaab kale waxay tahay Mareykanku waxay fiisihii kala laabteen madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabbaas sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulkiisa ayaa laga horjoogsaday fiisaha maxaa lagu haystaa laba qodob in Cabbaas uu ku dhawaaqi doono dawlad Falastiiniintu ay leeyihiin iyo arrinta kale oo ah in leeyahay Israa'iil ayuu dacwad ku furay Maxamuud Cabbaas iyo maamulka Falastiiniinta hadda waa maamulka sacabooleeyda ee degan Ramallah oo Israa'iil sida ay doonto ay ka yeesho haddaba aynu eegno warar ay arrintan ku aadan oo ay qortay wakaaladda wararka Anadolu madaxtooyada Falastiiniinta ayaa sheegtay inay ka xun tahay go'aanka maamulka Trump uu ku diiday in fiisaha la siiyo wafdiga Falastiiniinta ee ka qayb galaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee bisha dambe ka dhici doona magaalada New York
madaxtooyada waxay sheegtay in go'aankan uu khilaafsan yahay qawaaniinta caalamiga ah iyo heshiiska saldhigga qaramada midoobay iyadoo ku baaqday in maamulka Mareykanka dib uga fiirsado go'aankaasi isla war arrimaha la xiriira wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa iyadoo cambaaraysay go'aanka Washington iyadoo ku tilmaamtay arrin la yaab leh in Mareykanka uu ka hor istaago wafdiga uu hogaaminayo Maxamuud Cabbaas ka qaybgalka shirka qaramada midoobay wasaaraddu waxay sheegtay in tilaabadani ay ku xadgudbayso heshiiska saldhigga qaramada midoobay waxaana igu baaqday xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo golaha ammaanku inay qaadaan mas'uuliyadooda waxay kaloo ku adkaysteen in go'aanka Mareykanka uusan hor istaagi doonin aqoonsiga caalamiga ah ee dowladda Falastiiniya sheekada laakiin meesha ugu yaabka badan waa meeshan shabakadda leeyahay Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa waxay ka hadlaysaa arrintan iyo sababta loogu diiday Maxamuud Cabbaas fiisaha ama dalku galka Mareykanka waxa la leeyahay hadda maamulka Mareykanka waxay ku cadaadinayaan Maxamuud Cabbaas inuusan ku dhawaaqin dowladnimo khudbadiisa uu ka jeedin doono shirka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay waxaan leeyahay arrintan waxay ka dambeysay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka wada hadalla dhex mareen iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil uu ku dhiirigeliyay dhigiisa Mareykanka inuu hor istaago wafdiga Falastiin isla markaasna loo diido fiisooyinka shirka golaha guud arrinta marka dood adag bay dhalisay Mareykanka xarunta qaramada midoobay ku taal qawaaniinta u taal waxay tahay xitaa haddii uu soo booqanayo wadan isdagaalsan yihiin inaan la hadli karin Iran baa tagaysa cid walba tagi karta laakiin ninkii Trump wuxuu leeyahay wax fiisa ma siinayo Maxamuud Cabbaas iyo maamulka Falastiiniyiinta sababtuna maxay tahay Israa'iil ayay maxkamad iyo dacwad ku soo oogeen la xiriirta dagaalka Gaza aynu ku socono warbixinta shabakadda Axios shabakaddu waxay leedahay iminka waxa lagu dhiirigelinayaa maamulka Falastiiniyiinta inay ka laabtaan khudbadda dawladda ay kaga dhawaaqayaan shirka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar ayaa u mahad celiyay madaxweyne Trump iyo xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio mowqifkooda ka dhanka ah maamulka Falastiiniyiinta wuxuu sidoo kale amaaray tilaabada ku tilmaamay mid geesinimo ah oo ah mid markaas Israa'iil lagu taageerayo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in la laalay fiisooyinkii madaxda maamulka Falastiin oo ku jira Maxamuud Cabbaas oo ah madaxweynaha isla markaasna uu u diiday dalku galka si marka ay uga qayb galaan shirka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay dhinaca kale waxa la sheegayaa arrintan inay tahay mid si gaar ah isha loogu hayo sababtuna ay tahay bishaasi wadamo fara badan ay wax ku dhawaaqi doonaan dowladda Falastiiniya xitaa waxaa jira shir dhici doona maalinta axad ah ee bariya oo golaha wasiirada Israa'iil ay yeelan doonaan waxaa laga yaabaa inay ku dhawaaqaan in la qarameeyo daanta galbeed ee la haysto dhulka Falastiiniyiinta oo lagu darsado dhulkii Israa'iil ay hore u haysatay marka xaaladdu meel adag maraysa waxa leeyahay xitaa waxa suurtagal ah in dagaal la rido si looga hortago arrintan aqoonsiga dowladda Falastiiniya wadamo ay ka mid yihiin Britain iyo Faransiiska ayaa sheegay dagaalka Gaza haddii uusan idlaanin in aqoonsiga dowladda Falastiiniya ay ku dhaqaaqi doonaan laakiin Faransiiska wuxuu leeyahay wax walba ha dhaceen ama dagaalku ha socdo ama ha joogsado waxaan ku dhawaaqi doonaa dowladda Falastiiniyiintu ay yeeshaan waaye qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno bal intaan u gudbin Abu Cubayda aynu eegno wararka ugu dambeeya arrintan ku aadan askarta Israa'iil waxa leeyahay warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa hawlgalkan ka dhacay Al-Zaytun qorshihiisu inuu ahaa in lagu qabsado askar ka tirsan ciidanka Israa'iil xaaladdu meel aad ugu maraysaa haddii askartan la qabsadana Netanyahu ama gurigiisa loogu daadan doonaa bay leeyihiin warbaahinta Israa'iiliyiinta ama uu iscasili doonaa maxaa yeelay wuxuu fakarayay in uu maxaabiista soo furto maanta wuxuu ku dhawaaqay laba ka mid ah meydadka maxaabiista in la soo helay meydkoodii maxaabiistii la haystay laakiin haddii xitaa meydkooda la qabsado askar cusub ama nolol lagu qabsado waxa leeyahay xaaladdu isbedeli kartaa dagaalkan jihaad uu ku socda ay isbedelonta ayaa la leeyahay waa hagaag marka bal hadda aynu eegno Abu Cubayda oo hawlgalkan intuusan dhicin fariima soo diray telefishinka Al Jazeera ayaynu ku soo xigayna warkan
afayeenka garabka military ee dhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee Xamaas Abu Cubayda ayaa xaqiijiyay in iska caabinta Falastiin ay ku jirto heegan buuxa si ay uga hortagto qorshaha Israa'iil ee lagu qabsanayo magaalada Gaza taas oo uu sheegay in ay musiibo ku noqon doonto hoggaanka siyaasadeed iyo military ee Israa'iil isagoo xusay in maxaabiista Israa'iil ay la jiri doonaan iska caabinta goobaha ay ka dagaalamayaan ku sugnaan doonaan isagoo qoraal isdaba joog ah ku baahiyay barta Telegramka fiidnimadii xalay Abu Cubayda wuxuu sheegay in qorshaha lagu qabsanayo Gaza uu yahay mid ciidanka Israa'iil qasaare iyo dhiigbax ay kala kulmi doonaan isla markaasna kordhin doonta fursadaha askar hor leh lagu qabsan doono dadku waxay la yaabiyihiin ninkan hadalka markuu sheegayo 3 saac kadib waxa dhacay hawlgalka waa hawlgalkan warbaahinta Israa'iil ay leedahay al-Zaytuun buu ka dhacay qorshuhuna wuxuu ahaa askar Israa'iil lagu qabsado 4 askari waa la ilaa hadda marka Abu Cubayda waxa leeyahay muxuu ogaa aan ku soconay warbixintan telefishinka Al-Jazeera oo qoray wuxuu sheegay in iska caabinta ay ku jirto xaalad feejignaan diyaar garow iyo niyad sare ah waxayna soo bandhigi doonaan buu yiri tusaalooyin geesinimo iyo adkaysi ah waxayna casharo adag ku bari doonaan duulaanka haddii alla idmo ayuu yiri Abu Cubayda ayaa sheegay in dagaalka Netanyahu iyo wasiiradiisu wadaan ay sababeen in kala bar ay noqdaan maxaabiista nool ee Israa'iil isla markaasna ay kordhi doonto geerida haddii la sii wado dagaalka arrintaasna mas'uul ay ka noqon doonto xukuumadda Netanyahu afayeenka al-Qassam ayaa ballan qaaday inay ilaalin doonaan maxaabiista Israa'iil inta karaankooda laakiin wuxuu cadeeyay in ciidanka iyo maxaabiista isku meel ay joogi doonaan gaar ahaan furimaha hore ee dagaalka wuxuuna yiri noloshooda qatar ayaa ku jirta wuxuu yiri waxaan ku dhawaaqi doonaa maxbuus kasta oo geeriyooda annagoo magaca sawirka iyo cadaynta dhimashadiisa soo bandhigi doonaa saaka goor sii horeysay ayaa waxa lagu soo waramayaa in hawlgalo culus ay dhaceen iyadoo wararkuna taas ay ku darayaan in xaaladdu ay tahay mid cirkaasi ku shareeran waaye Turkigu shalay waxay ku dhawaaqeen arrimo culus oo ka dhan ah Israa'iil haddaba waxa soo baxay war cusub baarlamaanka Turkiga ayaa waxay yeesheen kulan degdeg ah oo looga hadlay warkii uu jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga haddaba aynu eegno warbixin ay qortay shabakada leeyahay Daily Sabah ee ka soo baxday Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa ka digay in weerarada Israa'iil ee ka socda Gaza iyo dhulka Falastiin ay qatar ku yihiin gobolka oo idil haddii aan la joojin hadalkan ayuu jeediyay isagoo la hadlayay xubno ka tirsan baarlamaanka Turkiga waxaana naga hadlay arrinta Gaza wuxuu ku eedeeyay Israa'iil 2 sano inay waday xasuuq kaas oo indhaha caalamkuna ay u jeedaan iyadoo aan la tixgelin buu yiri qiyamkii bini'aadantinimada Turkiga ayaa wuxuu sheegay in gabayhaanba uu joojiyay xiriirka ganacsi ee Israa'iil isla markaasna uu xiray dekadihiisa inay yimaadaan maraakiibta Israa'iil loo diiday sidoo kale wuxuu sheegay in ay joojin doonaan gabayhaanba diyaaradaha Israa'iil laga leeyahay inay maraan hawada waddanka Turkiga wuxuuna sheegay in Israa'iil ay ka wada marayka Gaza madax adeeg iyo iyadoo markaasi sheegaysa in dhibaato culus ay halkaasi ka wado wuxuu ku tilmaamay xasuuqa Israa'iil mid bogaga ugu mudo taariikhda aadanaha gali doona wuxuu xusay in Israa'iil caalamka hortiisa ay ku xadgudubtay dhammaanba qiyamkii iyo bini'aadamtinimadii Hakan Fidan ayaa ku eedeeyay Israa'iil inay ku dhaqmayso siyaasad gaajo iyo barakicin ah oo kana dadka reer Gaza dhinaca kale baarlamaanka dalka Turkiga ayaa kulankii uu yeeshay waxa uu kaga dooday hawlgallada ka socda bariga Gaza ee Israa'iil waxaana la sheegay in loogu baaqayo golaha ammaanka iyo golaha guud ee qaramada midoobay Israa'iil in laga eriyo xubinnimada qaramada midoobay sidoo kale dawladda waddanka Malaysia ayaa iyaduna waxay taageertay qaraarkan Israa'iil looga saarayo xubinnimada qaramada midoobay wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa waxay sheegaysaa in Turkiga 30% uu hoos u dhigay ganacsigiisii Israa'iil intii u dhaxaysay 7 Oktoobar 2023 ilaa 2 bishii May 2024 Xamaas ayaa sidoo kale waxay ammaantay mowqifka Turkiga waxaana ay boogaadisay hadalka ka soo yeeray Hakan Fidan ee ah in la gooyo xiriirka dhaqaale iyo ganacsi ee Israa'iil isla markaasna dekadaha Turkiga loo diido in ay ku soo xirtaan maraakiibta Israa'iil arrintaas ayaa waxa la sheegayaa qasaaro culus iyo dharbaaxa inay ku tahay dhaqaalaha Israa'iil waa hagaag
wararkaas halkaas aynu kaga gudubno bal aan markan isha marino wararka ugu dambeeya dhacdadii ka dhacday xaafadaha al-Zaytuun iyo al-Sabra wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in wali la la'yahay 4 askari oo ka tirsan ciidanka Israa'iil lama oga ciidankan inay gacanta ku dhigeen xoogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta iyo inay dhinteen iyo in meel ay difaac kaga jiraan ama ay ku dhuumanayaan intuba laba hubo wixii ku soo kordhay arrimahaasi barnaamijka wararka maanta ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allah idmo inta ka horeysa dhamaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabad gelyo